رحيم داوديال تلفزيونka Kalsan TV xafiiskiisa dalka Switzerland waxa uu suurta gashay inay wareysi gaar ah dalka Switzerland gaar ahaan magaalada Zurich kula yeeshaan muwaadin reer Ruush ah ku hadla luqadda Soomaaliga isla markaana qora oo lagu magacaabo Georgia Kachtis oo aan kula kulanay maanta magaalada Zurich waxaan jecelnahay inaynu arrimo badan dadka Soomaaliyeed ay xiiseynayaan ka wareysano Mr Kachtis soo dhawow waxaad ku hadashaa luqadda afka Soomaaliga maanta waxaad ka soo qayb gashay bandhig carweed lagu soo bandhigayo buugaagta Soomaaliga marka hore dareenkaaga ka waran aad baan raalli uga ahay waana ku faraxsanahay inaan joogo magaalada Zurich oo ay ku nool yihiin dad badan oo Soomaaliya oo qaar ka mid ah aan la kulmay maanta arawadii waa ka helay waxaan arkay buugaag fara badan waanan hore u arag waxaan soo bandhigay aniga ruuxayga laba buug oo igu dambeeyay mid waa buug sheekooyin midna waa buug maamaha waxaan ku kalsoonahay in qof kasta oo daayaro Soomaaliyeed haddii uu rabo inuu si fiican ugu hadlo Soomaaliga waliba inuu garto hadalka odayaasha inuu barto mahmaha iyo sheekooyinka oo abkii hore laga dhaxlay rag waragii hore hadal ma intuu yiri waayo hadal wayeel waa gudmar waxaan ka wada in marka dadka waaweyn ay Soomaaliga ku hadlaan ay uskadaan hadiyo jeerba sheekooyinka iyo mahmaha waa kuwa xikmad dheer ama qoto dheer leh وما سنتهي waxa u dhalay dalka Ruushka oo kamid ah dalalka qaaradda Yurub waxaad baranaysaa ama baratay oo aad qortaa luqadda Soomaaliga oo aan ognahay inay Soomaaliya ku taalo qaaradda Afrika waliba dhankeeda bariga ah marka maxaa u dooratay inaad xiisaha Soomaaliga aad u xiisayso qorto aniga af yaqaan baan ahaa anigu afka Soomaaliga mooyaane dhowr af kale ayaan ku hadlaa aan aqaano afka Afrika looga hadlo ee ugu horeeyay wuxuu ahaa afka Xabashida kaas waan bartay markii aan arday ka ahaa jaamacadda Moscow af Soomaaligu waa afkayga labaad ee Afrika looga hadlo waxaan bilaabay barashada af Soomaaliga intii aan waliba ayra waliba si baranaya kama sal gaarin waayo af Soomaaligu waa mergi oo kale waxaad badanka loo jiido u jiidma af hoodana weeye danka taaj laga eego waliba waa af soo jiidasho leh af qurxoon weeye af Soomaaliga waxa ku dhisan gabayayaal fara badan heeso fara badan oo fiican oo qurxoon xikmad badan ayaa ku dhisan af Soomaaliga marka af Soomaaligu saldhig buu u yahay fanaanka heerka sare iyo murtida la yaab kale hibada u ah dadka Soomaaliyeed laakiin luqado kale oo la sheegay inay ka mudan yihiin baa jira oo xitaa jaamacadaha lagu dhigo oo ka caansan maxaa luqadahaas u baran weysay oo aad u dooratay Soomaaliya luqadeeda markii aan bilaabay barashada Soomaaliga xiriirkii u dhaxayay midowga Sovietiyan ku noolaa iyo Soomaaliya aad buu wanaagsanaa midowga Sovietiya waqtigaas waxbarasho u yimid ardo badan oo Soomaaliyeed markii aan la kulmay oo bartay oo dhexgalay oo aan maqlay afkooda wala yaabay waayo af Soomaaligu waa uu tijabo qof kasta oo isu tilmaama af yaqaan waayo af adag weeye waa af aan aad ahayn waa af haddii aad baran karto in kale waa ku tijabo weyn marka waxaan ku dhacay inaan barto waayo waxaan ka helay ardada waxaan ka helay afka Soomaaliga dhawaaqooda oo aan maqlay intii aanan weli ku hadli karin waxaan maqlay sheekooyinka iyo mahmaha ay uskan jireen ardadii kuwaasoo ay fasireen kuwaasoo aan quruxdooda aan la yaabay waa taas sababta aanu bilaabay barashada Soomaaliga waa yahay dadka Soomaaliyeed waa dhaxgashay oo maanta waatan aad joogto dalka Switzerland Soomaali halkan buugaag ku soo bandhigayso aad kala soo qayb gashay dalka Ruushka ka yimid marka hadii aad dhaxgal Soomaalida la sameysay
maxaad ka aragtay Soomaalida dhaqankooda dabeecadooda Soomaaliya waxaan booqasho ku tagay 3 jeer oo kaliya mar walba 5 beri kaliya ayaan joogay 5 beri sheekh laguma noqdo Soomaaliya marka ma oran karo dhaqanka Soomaaliyeed waa ka sal gaaray ma oran karo laakiin aad baan u jeclahay habka ay ku nool yihiin dadka reer miyiga xoolaha way raacaan geela way raacaan aniga waxaan ku riyoon jiray mar walba inaan ku dhex noolaado dadka reer miyiga si aan uga barto habka ay ku nool yihiin waa dad aqli furan waa dad marti jecel waa dad soo dhaweyn wanaagsan marka dhaqanka Soomaaliyeed waxaan u haystaa dhaqan kayga oo kale maanta Soomaaliya waxaad luqadeeda baratay iyadoo dawlad ay jirto oo hal dawladood ka jirto maanta hadii aad la socoto Soomaaliya dawlado fara badan baa ka jira dhexdeeda ka jira maamul goboleedyo baa dhashay madaxweynayaal baa wadankii ka dhashay marka aad maqasho Soomaalida aad taqaanid adigu oo dalka Ruushka ahba aad dhaqankooda soo raasatay hadii aad maqasho waa ay kala tagtay oo maamulo ay kala sameysteen dareenkaaga soo noqday maxaa dareentay waa faraxsanahay hadii la soo koobo aniga Moscow markaan joogo garigoon baan ahay waayo Soomaalidu aad bay ugu yar yihiin Moscow 15 waxaan ka badnayn wayna kala daadsan yihiin marka marar difa ayaan la kulma sidaas awgeed awood kasta ayaan u isticmaala san u dhaxgalo Soomaalida markaan maqlo hadalkooda markaan arko wajiyadooda aniga waa raalli baan ahay waa faraxsanahay anigu siyaasadda Soomaaliya wax ma kala socotaa ma akhrisaa ma daawataa xaalka Soomaaliya haatan wax ma ka warqabtaa waxaan la socdaa nolosha Soomaaliya si guud ahaan hadii loo eego siyaasadda ma farageliyo marna ma faragelin jirin laakiin waxaan la socdaa dhibaatooyinka ay la kulmeen dadka Soomaalida naxariis xaddaaf ayaan u hayaa dadka Soomaaliyeed waxaan ka xumahay in dad aad u badan ay maanta qurbaha joogan ay dalkooda hooyo ay khasab ku noqoteen ay ka qaxan waxaan ku rajaynahay in dadka indheergalatada ee da'da yar ee qurbaha jooga in tartiib ugu soo noqon doonaan wadankooda hooyo waa tahay adigu ama muwaadin dalka Ruushka u dhashay misna dhaqankii Soomaaliyeed luqadii Soomaaliyeed wixii oo dhan bartay ma jirtaa baaq aad u dirayso dadka Soomaaliyeed aad hawada u martinayso waxaan ugu baaqayaa filka soo koraya ee Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed inay aad u bartaan afkooda hooyo iyo dhaqankooda waxaan xasuusinayaa dadka hadda daawanaya ama dhegeysanaya mahmaahda wanaagsan ee murtida weyn leh ee la yiraahdo walaalo ijali walaalo isna abi waa xabalo bataan oo xolo yareystaan walaalo ijali waa xolo bataan oo xabalo yareystaan waa tahay waxa maanta halkan lagu soo bandhigay buug aad adigu qortay oo mahmaahyadii Soomaaliyeed aad ku soo aruurisay bal buugaasi dhowr mahmaah oo ku jiro maxaa kamid ah waa badan yihiin waxa kamid ah ragii hore hadal laba intuu yiri waxa kamid ah mahmaahda aan uga dhigay astaanta noloshayda waxa la yiraahdaa nin maqan tabidi wanin jooga eebti hadii adiga joogto oo nin kale la tabayo yaa tahadigu wax ma tarbaatay Soomaha wax ma taraha noqon waa tahay daawadayaal aad ay u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa muwaadin reer Ruush ah oo ku hadla luqadda Soomaaliga professor ah oo qoray mahmaahyo badan oo Soomaaliyeed oo uu ku soo koobay book oo maanta boogiis halkan lagu soo bandhigay magaalada Zurich waa kaaga mahadcelinayaa wareysiga aasisa telefishinka Kalson TV